بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داودي هلكن وبرتي يوتيوب مدشا ورarka qodobada warka aad ku daawan doontaan anunaan idin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya wafdi culus oo ku wajahan magaalada Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose xubnaha wafdigani horkacayo sababta ka dambaysa in wafdigani ay halkaasi gaaraan ayuu idin soo gudbin doona qorshayaal culus oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka damacsan tahay wafdiga loo diray Raskamboni iyo guud ahaan wararkii ugu dambeeyay oo xiisadaasi la xiriira ayaan daawan doona haddii Rabbi uu ka raali noqdo sidaas oo kale qodobada warka aad ku daawan doontaan anunaan idin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya dawladda Soomaaliya oo joojisay duulimaadyada Nairobi iyo Kismaayo maxay tahay sababta caqabad intee leeg ayay ku noqon kartaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe duulimaadyada la hakiyay waynu eegi doonaa oo sidaas oo kale si wada jir ah aynu halkan ugu falanqayn doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Kismaayo waa sidee xaaladda Ilyas Bedel Gaboos waynu isla eegi doonaa oo warka aynu ku falanqayn doonaa oo si wada jir ah ugu eegi doonaa sidaas oo kale qodobada warka aad ku daawan doontaan inaan idin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira howlgalla culus ee ka dhacay duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ujeedada howlgalladaas iyo sida gaarka ah u fulisay aynu warka isla eegi doonaa oo ku falanqayn doonaa haddii Rabbi uu ka raali noqdo sidaas oo kale qodobada waxa qayb ka noqonaya oo warka aynu si wada jir ah ugu daawan doonaa haddii Rabbi uu ka raali noqdo ciidamo kale oo dheeraad ah oo ku tirsan kuwa maamulka Jubbaland ayaa ku biiray ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Raskamboni tirada ciidankaas aynu idin soo gudbin doonaa iyo saraakiisha horkacaysa magacyadooda qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordha daqiiqadahan kooban aynu si wada jir ah u eegi doonaa daawade balse aan ku xasuusiyo haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee bartan YouTube inaad subscribe dhahdo oo gambaleelka aad furato muhiim ayuu noo yahay qaybta hoose ee faallada ama commentigan aad noogu reebto oraahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinada aan kuu soo gudbinayna ee mahadsanid daawade ugu horeyn warkayaga haddii aynu ku bilowno wararka soo dhacaya ayaa waxay sheegayaan in dawladda federaalka Soomaaliya ay joojisay duulimaadyada magaalooyinka Nairobi iyo Kismaayo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tilaabo kale oo karan ah maamulka Jubbaland xilli wali ay ka sii darayso xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa labada dhinac war soo baxaya ayaa sheegaya in dawladda dhexe ay hakisay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka Nairobi iyo Kismaayo sabab la xiriira xiisadda culus oo xilligaani halkii ugu dambeysay ay markaasi marayso sida ilaa iyo haatan wararka aynu helayna ay tibaaxayaan tilaabooyinkan ayaa looga gol leeyahay in markaasi xiisadda oo meeshii ugu dambeysay ee halis ah marayso in markaasi sidaas oo kale culaysyo lagu saaray magaalada Kismaayo oo markaasi xalun ku meel gaar ah maamulka Jubbaland sida aynu ogaanay amarkan ayaa toos loola wadaagay shirkadaha diyaaradaha oo la siiyay digniino ah in aysan ka degi karin Kismaayo marka ay ka baxayaan magaalada Nairobi oo caasimad u ah dalka Kenya xayiraadan sidaas oo kale kuma jirto magaalooyinka kale ee gudaha ee isku xiraya magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo sida ay markaasi ila wareedyo noo xaqiijiyeen sidaas oo kale waxaanan qayb ka ahayn magaalooyin kale oo dhowr ah oo markaasi ka tirsan deegaanada Jubbaland ayaa hore iyaduna u qaaday tilaabooyin ay markaasi sidaas oo kale ku hakinayso qaybo badan oo ka mid ah deegaanada maamulka Jubbaland in aysan ka degin diyaarada ka soo duula magaalada caasimadda ah ee Muqdisho taas oo amara markaasi hore Jubbaland ay u duligtay waxaana sidaas oo kale Jubbaland war ay hore u soo saartay ku sheegtay in duulimaadyada ka yimaada magaalada caasimadda ah ee Muqdisho in aysan gaari karin magaalada Raskamboni taa oo ay Jubbaland ku sababaysay in ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya halkaasi hore loo geeyay arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhawaan Kenya uu markaasi booqasho ku tagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre oo Kenya kala hadlay arrimo ku aadan khilaafka dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo meeshii ugu sareysa garayo go'aankan lagu joojiyay duulimaadyada Nairobi iyo Kismaayo ayaa sidoo kale ku soo beegmayo ka hor qabsashada xafladda caleemasaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dib loo doortay 25 bishii aynu ka soo gudubnay kadib markii magaalada Kismaayo uu ku qabsaday doorasho isaga u gaar ah balse waxaa diiday dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo ka soo horjeesatay doorashada mar kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland uu isagu isku doortay isla markaasna uu isku caleemo saaray dawladdu waxay sheegtay in nidaam ahaan dastuurka Jubbaland uusan dhigaynin in markaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe
uu mar kale oo saddexaad uu isku sharaxo xilka madaxtinimada Jubbaland, balse isagu uu markaasi dastuurka wax ka bedel uu ku sameeyay eedeymaha ugu waaweyn ee xilligaani dul hoganayo doorashada Axmed Maxamed Islaam uu qabsaday ayayna qayb ka tahay. markana Ras Kamboni oo noqotay magaalada ugu hadal haynta badan muddooyinkii aynu ka soo gudubnay ayaynu eegi doonaa. soo baxaya ayaa tibaaxaya in magaalada Ras Kamboni ay ku wajahan yihiin wafdi heer sare ah. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa la qorsheynayaa in uu gaaro, sida wararka hordhaca ah ay ku soo baxayaan ay tibaaxayaan magaalada Ras Kamboni oo markaasi ah magaalada ugu hadal haynta badan xilligani. dowladda Soomaaliya ayaa maanta diiwaangelin ka bilowday ciidanka Jubbaland ee markaasi qaybta ka ahaa ciidamadii Ras Kamboni kaga soo biiray ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaasi ku sugan. Ra'iisul Wasaaraha ayaana la qorsheynayaa in magaaladaas uu u tago indha-indhayn iyo arrimaha la xiriira ciidamada qaybta ka ah dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugan. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaana lagu wadaa in markaasi kulamo gaar ah uu la qaato saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ee ku sugan magaalada Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose, isaga oo wax ka weydiin doona xaaladaha amniga magaalada iyo sidaas oo kale si guud waxay kaga wada hadli doonaan sidii guud ahaan deegaanadaas looga saari lahaa kooxaha argagixisada ah oo xilligan dagaal culus oo ka dhana la qorsheynayo in laga bilaabo deegaanada maamulka Jubbaland. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre horey waxa uu sheegay in qorshayaasha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya loo geeyay magaalada Ras Kamboni iyo magaalooyinka kale ee ka tirsan Jubbaland ay tahay sidii dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaasi kaga bilaabi lahayd howlgallo culus oo ka dhana kooxaha argagixisada ka oo in badan dhibaato ku haya dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaano dhowr ah oo dhaca gobolka Jubbada Hoose. markana haddii aynu eegno magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaynu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira howlgallo culus ee ka dhacay duleedka Muqdisho. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgallo culus oo xalay saq dhexe duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ka sameeyeen ciidamo ka tirsan booliiska sida militariga u tababaran ee la yiraahdo Booliisiya Militaro. howlgalladan oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa ka dhacay deegaanada la kala yiraahdo Tabeelaha Sheekh Ibraahim, Siinka Dheer ilaa iyo Ceelasha Biyaha oo xalay lagu arkayay ciidamo dheeraada oo ka tirsan kuwa booliiska sida militariga u tababaran. wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay gudaha u galeen xaafadaha deegaanadaas iyagoona kadib halkaasi ka sameeyay howlgallo culus oo la xiriira baaritaanna amniga lagu xaqiijinayo. sidoo kale ciidamada ayaa hubiyay gaadiidka iyo dadka maraya wadooyinka oo ay sameynayeen hubin amniga lagu xaqiijinayo, iyaga oo sidoo kale markaasi kumanaan dadka halkaasi ku dhaqan ah isku keena goob fagaara ah si markaas amniga loo xaqiijiyo. saraakiil ka tirsan laamaha amniga oo sidaas oo kale la xiriirnay waxay sheegeen in ujeedka howlgalku ahaa mid amniga lagu xaqiijinayo si markaas looga xaqiijiyo amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho banaanka. sidoo kale waxay tilmaameen in howlgalladan lagu soo qabtay dad lagu tuhmayo in xiriir ay la leeyihiin kooxaha argagixisada ah oo mararka qaarkood farar liddi ku ah amniga ka sameeyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo duleedkeeda. ciidamada Booliisiya Militaro ee ku sugan hareeraha caasimadda waxay sidaas oo kale muddooyinkii aynu ka soo gudubna sameynayeen howlgallo culus oo amniga lagu xaqiijinayo. saraakiisha hormuudka oo ah ciidankan ayaa lagu ammaanay sida amniga Muqdisho ay banaanka kaga xaqiijiyeen. daawad waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. haddii ay tahay booqashadaadii kugu horreysay ee bartan YouTube aan ku xasuusiyo inaad subscribe dhahdo oo gambaleelka aad furato si mar weliba aad u hesho wararka, warbixinada, xogaha iyo barnaamijyaadka halkan aan kuugu soo gudbino. qaybta hoose ee faallada ama commentiga noogu reeb oorahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinada aan kuu soo gudbinayno. muuqaaladeena sii sheer garay oo asxaabtaada la wadaag. mahadsanid daawade.